ururka samafalka daryeel walaal oo ka shaqeeya caawinta dadka danyarta ayaa maanta waxay 12 qoys gaarsiiyeen deeq raashin oo dhameystiran. Qoysaskani oo ku nool xaafadda Koosara ayaa gacanta ku haya dad qaba xanuunka dhimirka. Gudoomiyaha ururka daryeel walaal Mukhtaar Maxamed Jaamac Janan ayaa deeqdaasi si rasmi ugu wareejiyay ehelada gacanta ku haya dadkaasi xanuunsanaya. Gudoomiyaha ururkaasi ayaa sheegay inay dadkan yihiin kuwii ugu habboonaa ee deeqdani ku bixi lahayd. maanta oo ah maalintii Ramadaan u dambeysay oo ku beegan maalin Jimco oo khayr leh waxaan maanta joognaa magaalada Koosar oo aanu ka qaybinayno deeqdii raashinka ahayd ama afuri walaalka la bax sadaqada ayaanu maanta qaybinaynaa. waanu ku soo xilaynaa bishii Ramadaan wixii aanu bixinaynay baan ku soo xilaynaa wixii inta ka dambeysay aanu bixinaynana waa ku bilaabaynaa. marka waxa weeye 12 qoys ayaanu maanta badhna dharkiida siinay oo aanu ku siin doonaa insha Allah ta'ala inaanu gaarsiino dadkooda danyarta. maanta dadkaan wax wada gaarsinay waa dad wada waalan dhamaantood sida aad aragtay ilaa ka aynu la joogno ilaa inta kale aynu qaybinayno. waxaan runtii ugu mahadnaqayaa cid kasta oo kaalin ka soo qaadatay sadaqada waxa fiican in la magacaabin laakiin qof kasta waan ognahay bixiyeen halkii loogu talagalay baan u gaarsinay. dhanka kale ururka daryeel walaal ayaa sidoo kale waxay u deeq isugu jirtaa agabka hurdada iyo raashin ku wareejiyay qoys haysta gabadh yar oo 10 jir ah oo u waasibay xanuunka faaligu. sidoo kale gudoomiyaha daryeel walaal Mukhtaar Maxamed Jaamac ayaa ballan qaaday inay hooy dhameystiran u dhisi doonaan hooyo waayeela oo la tabaalaysan wiilkeedii oo ku dhacay xanuunka dhimirku isla markaana bacadka ku xidhnaa muddo gaadhaysa 4 sano. waxaan maanta joognaa Xasan Raage oo aan hore bulshada muxsiniinta ugu soo gudbinay inay guri u dhisaan. halka aad aragtaan waa suuligiisa nooca ahaa halka uu ku xidhan yahay bartu degan yahayna waa barta. waxaanu runtii ballan qaadaynaa maanta inaanu u dhisayno suuligii iyo gurigii labadiba ay diyaar yihiin. ilaahay mahadin ilaahay baa mahad loo suurta gashay maanta ay tahay bisha Ramadaan dhamaad deeqdan walaalaheena baahanayna soo gaarsiin anagoo ah ururka daryeel walaal aadna waxaan ugu mahadnaqayaa walaalahayga markasta wanaaga jecel noo suuro galiyay gabagabadii Ramadaan inaanu soo gabagabayno noona bilowdo qaybaha dambe aanu bulshadeeda ku gaarsiinayno anagoo ah ururka daryeel walaal. waxaan mahad celinayaa qof kasta oo nagala qayb qaatay khayrka aan u taaganahay aan walaalahayaga walwalan iyo kuwa mirka qabe aan haysanba aanu soo gaarsiinayno. dhanka kalena gudoomiyaha xaafadda Koosara Maxamed Axmed Hirad iyo sidoo kale ehelada dadka maanta la gaarsiiyay deeqdaasi ayaa ka mahadnaqay deeqdan in la soo gaarsiiyay waxaana sheegeen in deeqdan la soo gaarsiiyay xilli ay baahi weyn u qabeen. waxaan runtii mar labaad uga mahad celinayaa cidda bixisay guriga loo dhisayo Xasan Raage Cali oo runtii ah nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo fiicnaa maantana runtii dad handicap ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ilaahay caafimaadkiisa u soo celiyo. daryeel badan buu helayaa marka suuliga iyo guriga labadaba loo dhiso. waxaana leeyahay ku dhiirigelinayaa hadaalina dadka muxsiniinta ee hawlaha caynkan ka shaqeeya ilaahay agtiisay idin taala wanaagaasu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin daryeel walaal iyo dadka muxsiniinta ah ee qaatay doorkan ka qaatay inay dadka runtii nugul ay kaalmeeyaan. horta hooyada waa hooyo xanuunsanaysay in badan xanuunsanaysay gurigana daqiiqad ay kala dhigaysaa amrigeeda way jeexjeexaysaa dhibaato badan bay haysaa. ururka daryeel walaal oo inta badan u dhaqdhaqaaqa dadka danyarta ah ayaa guud ahaanba ummadda muxsiniinta ugu baaqay inay soo taakulayaan dadkan jilicsan ee ay saameeyeen duruufaha nololeed. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaale magaalada Burco.